Soomaalidu farduhu muddo badan bay lafdhabar u ahaayeen waxay ku jireen kaalinta imanka baabuurta ay ku jirto waxa loo adeegsan jiray safarka sahanka wariskaarsiinta iyo duulaamada rag badan baa fardaha wax ka yiri sugaanta fardaha lagu amaanay garaar bay u badnayd ragii amaanta fardaha ku dheeraaday waxa kamid ahaa fardaha isagu wuxuu u kala saaray fardaha midabadooda ugu horeyn horta farduhu waxay u kala baxaan 7 midab oo kala ah xamar ashkir baroor aynab bulaale qaaje boos marka muxuu ka yiri dad inta ugu muhiimsan in laga soo qaado ninkaasi ragay walaalahay buu faras u soo doontay dabadeetna wuxuu yiri ashkir orodkii waa maalintuu oo faweyn yahay ololaha nin jecel baan hayuu sanay imanin bulaalaha fadaygan ku nacayaara soo riday niman urursan buu ku gashaayuu sanay imanin qaajaha indhaha diiran leh waa in kaar qaba oo diyo qodxaa kama gudayuu sanay imanin ninuu gaarsada xamarka jecel oo dambeedkii usha iyo dhawaaqu sugayuu sanay imanin faraskii wanaagsanaa buu sheegay wuxuu yiri isha waxa la raacaa fardaha kii ilwaad badan ee afar midab leh oftiya fankii araxdu weynaatay oogada madow oo baroor u baxabaan dooni mid kale aad sheegayso isaguna gabayaa kale wax ka sheegay in fardaha wal dadka say nagu jilcino gabayaagaasina reer tog dheer buu ahaa waxaa la odhan jiray maxamuud daalin 1920 ayaa Britain fardaha ku saabsan lagu qabtay nugaal dabadeetna faras ulahabu kaga qayb galay goobtii markii uu yimi ayuu faraskiisii garaar ku amaanay wuxuu yiri waxa qoob yar la keenay qaarna waaban aqaan qaarna waa yar qiyaasay oo qolona maanta ma hayso qobabkiisa fudaydkii iyo qoorta uu koru taagi qardabaynta muquuska qumba loo arkayaayo nina loo qarin maayo haddii la isku qacsiiyo qaabka uu ordayana aniga way qorraxda quyar hoosu habaarkiyo isha la isku qalooxshana qaliruugu duceeyay quwadii rabbiga iyo qardhaas baa uga xijaaba qumud maaha gabow ah qayrab maaha darmaana qayax maaha iftiina qaaja maaha cadaana qayr maaha madow ah qulna maaha kudaaya qawac maaha cirweyn qalaf maaha margaaga qufla maaha xaraana laba qaar iyo feedhiyo waa calool qamadaada xalayna uu qatanaayo qudheeba u baxaya wax kale oo kamid raggii fardaha maali jiray gabayaagii caanka ahaa ee reer saaxil ee la oran jiray cali jaamac habil cali wuxuu yiri imisaan ku dhaqaayay oon ku dhowraarimiyay imisaan ku dhaqaayay oon iska dhowray dushaada imisaan ku dhaqaayay oo dhidid ka tifiqleeyo dhibaato kaaga tuulaayay imisaan ku dhaqaayay oo dhabdarooyin ku fuuliyo dhantaal ka celinayay imisaan dhayal fuul iyo dhalin awr kugu doontiyo kaaga dhaartay cayaayir wuxuu imisaan ku dhaqaayo on duudka weyn dhinaciisa afar dhooma horaadiyo dhoocilku ugu raraayoon ku dhibayay madiidin imisaan dhaxdin meel leh aqalkoo dhan la gooyey sida dhowraha wiil dhinacayga ku seexshay imisaan ku dhaqaayayo dhulka ooga sariiray oo dhub ka soo bixi waayey wan weyn oo dhagaxoobay dhagintaan kaga siiyey subag kaaga dhuraayey oo dhowr galaan kugu xaabshayo dacartii kaaga dhameeyey abwan waxa kaloo jirta imaka de fardi waaba la ilaaway inkastoo marka qaarkood marka la galbinayo hablaha iyo aroosyada iyo lagu arko iyo marka xafladaha iyo madax la soo dhaweynay iyo bal ii waran markaasi masalada si dabar go'ayaan way dabar go'een oo xilligii Ismaaciil Mire ay noolaayeen baabay ka hadleen dabar go'a fardaha Ismaaciil Mire tixu kaga hadlayay qiimo dhaca fardaha ku dhacay wuxuu yiri darmaanaha waraabaha digle iyo loo dayacay haada dameerahan la bari siinayo iyo diifta xamar qaayib daa'imo maxaa xigi adduun dabadii weeyaan gabayaal oran jiray guulad safar samatar ayaa isaguna ka hadlay farduhu sida kaalintooda uga baxeen waaga hore wuxuu yiri aynaan fardood baa adduun carafu roona iyo baabuur sidii loo camiray ayna geli waaye ceesaan riyaa iyo baroor caar leh baa simanay inaan haatan lagu ciil baxayn soo cunsuro maaha